Maxamed Deqeere ahna dhiirigeliyay nololeed wax shaqo ma hayo wali waxaan ku jiraa tankii waxbarashada waxaan dhigtaa jaamacadda Bari Africa kulliyadda Public Administration sidoo kale waxaan diploma Computer Science qaatay jaamacadda Boosaaso sidoo kale waxaan diploma Procurement and Logistics Supply Chain Management ka qaatay jaamacadda BIDA walaal sababta ku doortay waxa weeye waxaan ognahay dhalinyartu inay yihiin aan hantida kaliya oo wadan leeyahay u baahan baraarujinta u baahan dhiirigelinta u baahan wax sheeg fara badan si ay u noqdaan jiil la tartama jiilalka dunida ee iyaga la jiilka ah inay la tartamaan ayaan ku doortay waxayna u baahan yihiin in wax fara badan loo sheego si ay u hantaan noloshooda mustaqbalkooda hadafna u yeeshaan oo ay noqdaan dad dalkooda iyo dadkooda anfaca naftoodana horumar gaarsiiya hawlaha loo jiraan hadeertaana wali waa wada waana jeclahay hadduu alla idmo inaan soo gudbiyo si ay dadku uga faa'iidaan uguna noqdo tusaale fiican doorkoodana ay uga qaataan ayna noqdaan dad dhiifoon oo wax soo saari kara oo dadkoodana wax ku soo kordhin kara ujeedka koowaad aan ka leeyahay waxaa weeye inaan noqdo marka koowaad qof bulshadiisa caawiya oo noqdo qof dhalinyarta u istaaga una sheega waxyaalaha noloshoodu ay u baahan tahay laakiin aysan iyagu ku dhiiran laakiin u baahan xusuusinta tusaale qof kasta oo nolosha aadanaha ah wuxuu u jecel yahay inuu guulaysto laakiin waxaa lagu kala duwan yahay fikirka ay naftu fikirayso iyo su'aalaha ay weydiinayso naftaadu ka jawaabitaankooda marka inaan xusuusiyo una sheego waxa noloshoodu ay weydiinayso inay ka jawaabaan caqabadahana u dhabar adeegaan ayaan ku doortay inaan xusuusiyo maadaama ay xoogaa aysan u muuqan dad yani ku dhiiran kara inay wajahaan caqabada koowaad oo marka koowaad ka hor imaanaysa waxa weeye waa naftaada caqabada koowaad oo naftaada waxay ku leedahay marka aad rabtay inaad yool tigsita ama si hami oo niyadaada ku soo dhaco the only thing ugu soo dhacaya waxa weeye ma samayn kartid you can't do laakiin naftaada waxaa la rabaa inay ka jawaabto oo ay nafta ku tiraahdo waan awoodaa waana samayn karaa taas aniga igu dhacday waana isku dayay waana ka jawaabay waxaana u maray caqabadii sida anigu aan u rabay inaan uga jawaabo nafsadeedu waxay weydiinaysay qof kasta oo bini aadan ah alla wuxuu siiyay garaad iyo caqli iyo hufnaan laakiin qof kasta waxaa la rabaa inuu nolosha isagu raadiyo nolosha adiga kusoo raadimayso nolosha marka adigu raadisay oo adigu su'aalaha nafta ku weydiinayso aad u qaadatay qalin kadibna aad qortay ayaa waxaad noqon kartaa qof nolosha hanan kara oo qorshe u samayn kara oo balaano iyo qorshayaal fara badan samaysan kara si marka taa loo helo qofku wuxuu u baahan yahay qof dhiirigeliya oo ku dhiirigeliya nolosha inay u baahan tahay firfircooni nolosha inay u baahan tahay adkaysi nolosha inay u baahan tahay dulqaad noloshu inay ballaaran tahay caqabado aysan noqon wax baahsan oo yani sida badda oo kale u ballaaran inaysan ku noqonin laakiin caqabado ay yihiin wax risaaysan ah oo kooban oo maalmo ah laakiin loo baahan yahay qofku inuu tafakur la yimaado iyo adkaysi si uu uga gudbo caqabadahaas oo una fahmo inuu guushu u ballaaran tahay una baaxad weyn tahay sida badda oo kale laakiin caqabadu aysan ahayn wax ballaaran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Halmaal Media aad baa mahadsantihiin